xidig salaamu calaykum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaad ku caanbaxday xidiga Hargeylle magacaago saddexan muxuu yahay? magacaygu saddexan maxamed xamdi xasan cumar ween oo jooga interkaaf cadde oo ka tirsan degmada Hargeylle gobolka Beer. waayahay imise jir baa tahay xamdiyow? 14 sano jira. waayahay soo dhawow waxbarasho halkeed maraysaa? hageed waxbarasho ka maraysaa? waxbarasho waxaan marayaa fasalka 6 sanadkan cusub ee soo socdana 7 baan noqonayaa. quraankiina waad dhigataa baan filayaa. haa quraanka waan dhigtaa. waayahay 15 sawir baad hal mar soo gelisay bartaada Facebook-ga shalay. deetana aad baad waxa weeye u soo jiidatay dad badan oo Soomaaliyeed. arrinta ma ogtahay? haa waan ogahay. goormaad ogaatay inay sawiradaada saameyn ku yeesheen baraha bulshada ay Soomaalidu isticmaasho? waxaan ogahay xalay baad ogaatay. siday dareemeen dadka degmada ama tuulada Afcade kula degan sidee dareentay markii aad ogaatay in baraha bulshada aad saameyn ku yeelatay? markaan ogaaday magaalada oo dhan oo xidiga meel kasta xaafadda xitaa intii soo sawiraan kula gala hal mar sawiro kurtiga wada la imaadeenba. dadka tuulada degan ba marka hore kugu soo xoomay markaas aad waxa weey ogaatay inaad soo shacbaxday. markaasaan ogaaday Facebook-gan waan ka arkay marka hore dadka meelaha kala joogo dhan. xidigow ma islahayd sidan fudud ayaad saacado gudahood caan ugu noqonaysaa? ma isma lahayn marka hore sawiraanta dhigay. waad iska dhigtay un? waan iska dhigay. waxaad isku soo dhex sawirtay adoo jooga farmasi? farmasiga aniga walaalkay iska farmasiga joogay. farmasiga maxaad ka qabataa? farmasiga waan gadaa. waad iibisaa? marka aadan dugsiga ama iskuulka aadan dhiganaynin baad iibisaa? iskuulka hadda ma jiro cashirka aruurta marka soo qaato on soo qoray adeegyadaasan furaan iibisa. ood iibisaa? dadku waxay isleeyihiin xidigii waa nin da'diisa sida muuqata yar haddana farmasi buu gadayaa. ma kala taqaanaa daawooyinka iyo qiimahooda? daawooyinka iyo qiimahooda waxaa dhan kala qodaa. waayahay mustaqbalka maxaad rajaynaysaa inaad noqotid? doctor baan rabaa inaan noqdo mustaqbalkayga. maxaa tiri? doctorna noqon rajaynaya. tuulada aad joogtid xidigow yaa ugu caansan? umulisada. yaa umulisada. umulisada tuulada? umulisada tuulada ugu caansaneed miyaa? haddana aniga. waayahay falcelin noocee ahaad kala kulantay ilaa iyo dadka aaga ku dhaqan iyo dadka kula soo xidhiidhayaba? falcelin aada u weyn. mid aada u weyn? sawir aan kula galo ma lagu dhahaa? bilaal. waayahay maxaad ka codsan lahayd dadka ka helay sawiradaada ee ka falceliyey ee Soomaaliyeed ee meel walba jooga? waxaan ka codsan lahaa in farmasiga nala soo camiro. in farmasiga la idiin soo camiro? waayahay waxaan filayaa fariintaada inay in badan gaarayso. fariimo kaloo ku soo gaaray ma jiraan? codsiyo kale? codsiyo kale waxaa ka mid ah dadka dhanba way soo fariiminayaan. way kuu soo hambalyanayaan? cabdi baaruud, cali dhaanto, gamaadiid, dhammaan dad badan. xidiga Hargeylow tu kale aan ku weydiiyo. soo dah. waa dhaweyto waxaa boostiyadaadii aad soo qortay ka mid ahaa inaad xaraashaysaan farmasiga. maxaa idinku dhaliyay inaad xaraashtaan? anigu dhaliyay wanaga yeeshaan waayey meeshana tuulo yar bay ahayd marka inaan iska xaraashno wax kala gelinay danta nagu kale. waaya hadda go-aankii noocaas ah xaraashkii ma wadaan mise waa ka laabateen? waan ka laabanay hadda waxaan rabnaa in nala soo camiro.
oo laydin soo camiro si aad dadka tuulada ay dawo ay u helaan waya aad baad u mahadsan tahay xidiga Hargeyla ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefanka mar dhaweyd aan ku wada hadlaynay aad baan kugu mahad celinaya waxaan filayaa fariintaadii ahayd farmasiga la soo camirana inay Soomaaliya oo dhan wada gaarayso waxaan jeclaan lahaa cidii u baahan xiriirkeedana in halka barta Facebook uu ku leeyahay xidiga Hargeyla Maxamed Xamdi inaad kala xiriirtaan